بسم الله الرحمن الرحيم ومركلة iyo barkhad laabid injineer maqane runtii hal su'aal oo ay soo weydiiyeen rag badan oo khiyaarta ka mid ah oo page-kayga ku taxan ayaan jeclahay bal inaan idinla wadaago su-aashaasi oo ahayd sideen ku caddayn karaa ilkahayga. su-aashaasi runtii waa wax aada u dhib yar inaad ilkaagu caddaadaan maaha wax aada u weyn. keliya waxaad soo qaadanaysaa colgate iyo burushkaaga. waxaad sameynaysaa marka ugu horeysa intaanad cadayan inaad ilkaha macnaa dawada gelin waxaad sameynaysaa waad luqluqanaysaa kadibna burushka oo khaasa ayaad ilkaha ku cadayaysaa kadibna waxaa kasoo baxaya wixii wasaq ku jiro oo dhan waad luqluqanaysaa ilaa 2 jeer ilaa 3 jeer ayaad saa ku celinaysaa kadib burushkaad dhaqaysaa ama maydhaysaa marka dambe dawadaad marinaysaa markaad dawada mariso ayaad ilkaha si yaroo qurux badan ayaad ugu wada cadayaysaa kadibna waad iska tufaysaa burushkana waad maydhaysaa haddana burushkii oo khaasa ayaad ilkii ku celinaysaa waxaad marka dambe arki doontaa xoor caddaana oo ilkaha saarmaya ama sida saabuunta oo kale ah xoor candhuuf xoora ka imanaysa kadib waad luqluqanaysaa haddana waad ku celinaysaa ilaa carabka ilaa ilkaha markaad 2 jeer oo dambe sidaa aad ku celiso kadib waad luqluqanaysaa ilkaagu waa caddaanayaan. taasi aroortii ayaad hal mar samaynaysaa. waxaa kuu soo hadhay casarkii marka la tooso waxaad samaynaysaa cadaygeenan caadiga ah ayaad isticmaalaysaa cadaygana sidoo kale waad ka luqluqanaysaa keligii ayaad ku cadaynaysaa. habeenkii baa kuu soo hadhay mar saddexaad markaas saddexaad waxaad samaynaysaa waxoogaa mar keliya ayaad sidoo kale intaad luqluqato hal mar ayaad burushkii marinaysaa oo aan dawo lahayn kadib marka dambe dawada hal mar baad marinaysaa waad ka luqluqanaysaa waad ku seexanaysaa muddo bila ama dhowr iyo 10 cishaa markaad hawshaasi ku wado waxaan hubaa in ilkaagu ay caddaan doonaan sida kuwaygaas oo kale. aad iyo aad baad mahadsantihiin akhyaartii soo weydiinaysana intaas nagu jawaabaya saaxiibkii barkhadle Abiib Cumar Hormuud oo jeclaystay inuu akhyaartii su-aasha soo weydiisay maqaalka la wadaago. aad iyo aad baan idin soo salaamayaa. asalaamu calaykum.